waan salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad aan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono ama xog iyo xaqiiqooyin yar oo laga qoray filimka caanka ah ee Pathan kaas oo ah filim aad loo wada sugayo ama aad loo wada dhowrayo daawashadiisa filimkan ayaa maalinta birita tiyaatarada Hindiya la saari doona hadda waxaan idin wadaagi doonaa xaqiiqooyin laga diiwaan galiyay balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channelka soo biirto aad subscribe noo saarto haddii muuqaalku cajab geliyo like inoo saar laagto adigu culays kugu ma ahanagana waxa weeyaan dhiirigelin oo kaliya ay noo tahay filimka Pathan waxa hogaamiyalka wada ah jilayaasha caanka ah Shah Rukh Khan iyo John Abraham waxaana ku wehelisa gabadha caanka ah Deepika Padukone filimkan waxaa la rabaa in tiyaatarada Hindiya la saaro maalinta birita oo ay ku beegantahay 25ka bisha January filimkani waxa weeyaan film aad loo wada sugayo markay timaado dhanka Bollywoodka Soomaaliyeed ugu badan sanadii ugu dambeeyay waxay daawanayeen ama aad ugu haysteen daawashadooda aflaamta dhankaasi koonfurta Hindiya laakiin hadda waxaa la wada sugayaa ama la wada dhowrayaa daawashada filimka Pathan Bollywood sanadii ugu dambeeyay iska hurdayeen oo koonfurta waxa is leedahay koonfurta Hindiya ay bajaan siinayeen laakiin markan waa ay soo laabteen filimka Pathan beri oo ay ku beegantahay 25ka bishan hadda aan ku jirno January ayaa tiyaatarada Hindiya la saari doona haddaba saaxiibayaal waxaan ka eegi doonaa xaqiiqooyin laga diimagaliyay ilaa dhowr xaqiiqo 3 ilaa 4 waxaan ka gaarno xaqiiqada ugu horeyso waxa la leeyahay filimkani waxa ay siin looma sameeyay ama promotion waxa luqada qalaad lagu yiraahdo sida aan wada ognaanay jilayaasha Hindiya waa caansan markay film sameeyaan waxay sameeyaan aflaamtooda waxay u sameeyaan promotion ama dacaayad ama waxay siiyaan oo barnaamijyo waxay booqdaan TV-da caanka sida Kapil Sharma barnaamijkiisa kale iyo dadyo kale oo caan ah barnaamijyadooda ama dance India ha ahaato ama barnaamijyada hal abuurada lagu soo bandhigo kale ay booqdaan si filimkooda ay xayisiin ugu sameeyaan si daawasho badan u helo filimkooda laakiin Shah Rukh Khan qolada iyo saaxiibadiisa ama kooxda filimkani waxay xayisiin uma aysan sameeynin waxay leedahay malaha xawiyaan kalsooni isku qabaan oo filimkooda in lacag fiican keenin doona ayay aaminsan yihiin xaqiiqada labaad ee filimka laga diiwaan galiyay saaxiibayaal waxa la leeyahay waxa filimkan lagu soo bandhigi doona akshiimo ay leeyihiin qolada musaaracada caanka sida ninka lagu magacaabo Roman Reigns iyo sidoo kale Shawn Michaels waxa weeyaan musaaracada kale marka fiirsanaysid nin walba waxa uu leeyahay action u gaar ah tusaale Roman Reigns ninka lagu magacaabo ah nin hadda awood ku haysto markii la eego ama uu awood qolada uu awood badan ee dhanka WWE ga musaaracada ayuu kamid yahay actionkiisa Superman Punch wax la yiraahdo tusaale hadda feerkeedii muuqdo kale waxa weeyaan qaab uu asigu leeyahay u gaar ah waxa qaabkan adeegsan doonaan ama lagu soo bandhigi doona ficil ama dagaal dhaxmaraya John Abraham iyo sidoo kale Shah Rukh Khan sidoo kale ficilada kale actionka lagu soo bandhigi doona waxa kamid ah ninka lagu magacaabo John Michael actionkiisa lagu yeero Sweet Chine Music waa sida laad yani qofka asigoo taagan qoorta kale darba lagu dhufanaa sida sawirka idin kaga muuqdo kale actionkaasna sidoo kale waa ay ku soo bandhigi doonaan oo xagga iyo dhanka musaaracada ay ka soo minguuriyeen sida la sheegay qoladaani filimka Pathan xaqiiqada kale laga diiwaan galiyay waxa weeyaan xaqiiqada saddexaad aan leeyahay aan kala wadaagi doono filimkan waa filimkii ugu horeeyay iska la soo muuqan doonaan jilaaga caanka ah Shah Rukh Khan iyo sidoo kale John Abraham ka hor filimkan weligood yani film ay isla wadaan kama aysan keenin laakiin way isla shaqeeyeen oo film lagu magacaabo kaal oo la daawado sanadii 2005 soo baxay ayuu ninkani agaasimiyo xogaa uu shaqo u ka hayay ama producer ah ninka Shah Rukh Khan ahaa laakiin actor waxa ka ahaa ama dadyoga jilayo waxa kamid ahaa John Abraham laakiin weligood nasiib uma aysan yeelan in ay hal film ka soo wada muuqdaan xaqiiqada ugu dambaysa in kala wadaagi doono xawiyaan saaxiibayaal sanadii 2014 filimkii Happy New Year ayaa la rabay in lagu soo daro ninka lagu magacaabo John Abraham waxaan la rabay booska ninka lagu magacaabo Sonu Sood in booskiisa marka hore ama Sonu Sood booska uu jilay waxa marka hore loo bandhigay jilaaga caanka ah John Abraham laakiin waa iska diiday wax ka cudur daartay maadaama asxaab kale ama qolo kale uu balan ka qaaday inuu aflaam u sameeyo yani shaqooyin kale ayuu lahaa sida darteed waxa uu sheegay inuusan filimkaasi sameyn karin oo leeyahay shaqooyin kale haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka yara in kala wadaagaya filimka Pathan kaas oo ah filim la wada sugayo daawashadiisa haddaba meel ku sii qoro maalin kadib ama maalinta birita ah ayaa tiyaatarada Hindiya la saari doonaa laakiin nasiib xumo Soomaalidu waxa weeyaan laga yaabay in dhowr isbuuc kadib uu soo gaaro filimka duu OTT ahaa lahaa oo dhanka iyo online laga daawan lahaa waxa weeyaan maalin kadib waa la iska heli lahaa laakiin hadda waxay noqonaysaa in tiyaatarada markuu ka dago kadib in jaanis loo helo in la daawado ama website ahaan loo helo ama online ahaan loo helo ama Soomaali kadib markaas haba soo gaaro doorabo muuqaalka intaas ayaan ku gabagabeynaa saaxiibayaal fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe inoo saar waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena